gaari oo tiknika ah iyo ciidan uu hogaaminayo gudoomiyihii hore ee deegaanka Owdiinle Ibrahim Kaalay oo kamid ahaa saraakiisha daacadda u ahay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kuwaasi oo isu soo dhiibay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib wada hadallo muddo socday oo ay si hoose ugala hadlayeen mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed wararku marka intaas waxay ku darayaan in arrintani ay tahay mid saameyn weyn laga cabsi qabo inay ku yeelato dhinaca Laftagareen maadaama muddooyinka ugu dambeeyay ay ahaayeen dhinaca kaliya ee iyaga ay u goosanayaan askartu. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xulashada wararka ah qodobada aan idinku haynana waxaa kamid ah ciidamo tiro badan oo ka soo goostay ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo. maxay tahay sababta ciidamadaasi ay u soo goosteen maxaa kalifay in xilligan ay furfurmaan ama ay dib u soo noqdaan ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee bariyihii ugu dambeeyay ku biirayay ciidamadiisa kala duwan ee joogay duleedka magaalada Baydhabo. barnaamijkeena xulashada ayaan ku dul istaagi doonaa arrimahaasi waxaana si toos ah qadka telefoonka ugu jira oo aan wax ka weydiin doonaa arrimahan bal sida ay u dhaceen iyo xogihii ugu dambeeyay ee ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee imaaday duleedka magaalada Baydhabo. Cabdi Jamaal oo la socday wararkii ugu dambeeyay ee Koonfur Galbeed. Baydhabo waxaa soo gaaray 3 gaari oo tiknika ah iyo ciidan uu hogaaminayo gudoomiyihii hore ee deegaanka Owdiinle Ibrahim Kaalay oo kamid ahaa saraakiisha daacadda u ahay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kuwaasi oo isu soo dhiibay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib wada hadallo muddo socday oo ay si hoose ugala hadlayeen mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed. wararku marka intaas waxay ku darayaan in arrintani ay tahay mid saameyn weyn laga cabsi qabo inay ku yeelato dhinaca Laftagareen maadaama muddooyinka ugu dambeeyay ay ahaayeen dhinaca kaliya ee iyaga ay u goosanayaan askartu. waayahay Cabdi Jamaal marka bal ciidankani qaabkay ku yimaadeen maxaan ka ognahay gudaha magaalada. waxaan ka ognahay xogaha hordhaca ayaa jiray oo soo taraya kuwaas oo sheegaya in isdhiibitaanka saraakiishan iyo ciidamada ka timid kadib dadaallo badan oo la waday kuwaas oo laga wada xaajoonayay muddana socday ay maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxeen xogo iyo fursado ay suurtagal tahay iyaga oo nabada ciidankaas inay kaga soo bixi karaan deegaanka Ceeldoon. dhowr maalin ka hor waxaa ogeed in ciidanka Laftagareen ay isu qaybiyeen dhowr qaybood qayb kamid ah loo diray dhinaca iyo Waajid iyo sidoo kale Qasax Dheere qayb kamid ah lagu reebay halka ay ciidankani ka soo tageen. marka taliyahan soo goostay waa taliyihii loo xil saaray inuu halkaasi ku sugnaado oo halka hawsha ka sii wada Ceeldoon. ciidamadii kale ee daacadda ahaana ay intooda badan ay halkaasi ay ka tageen oo dhinaca Waajid ay aadeen. marka ilaa iyo hadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si rasmi ah umay sheegin numberka guud iyo tirada guud ee arrintan iyo ciidamada ku soo biiray laakiin ilaha amniga ayaa sheegaya inay arrintani ay si weyn ay tahay guul u soo hoyatay deegaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxayna sheegeen inay ka gaabsadaan inay faahfaahin guud ka bixiyaan haddii ay jiraan qorshayaal kale oo ay ku doonayaan inay ku soo xareeyaan saraakiil kale iyo sidoo kale askar kale oo kamid ah kuwa banaanka ku sugan. waa gartay ciidamadan imaaday ee ka soo goostay Laftagareen tiro ahaan intay leeyihiin. askartu waa 3 baabuur oo tiknika ah waa dareemi kartaa baabuur oo 3 baabuur oo tiknika oo hubkoodu saaran yahay askarta ay saaran laakiin tirada guud waa ku hormariyay wadarta guud ee askarta halkaas soo gaartay lama sheegin laakiin 3 baabuur oo Koreya ah oo isdifaacisay oo hubkoodu dhameystiran yahay ayaa ka soo laabtay. arrintan marka waxay muujinaysaa horey waxaad u ogeed inta badan askarta meesha tegaysay iyo dadka meesha tegayay ma jirin wax la tegayay baabuur tiknika ah. waxay ahaayeen dad lugeynaya dad qoryahooda wata dad ayagoo caadiya tegay dad noocaas ay ahaayeen. laakiin in baabuur tiknika ah oo hubaysan oo lafdhabar u ah duulaankii Baydhabo tiro ka dhowr jeer lagu soo qaaday ay maanta Baydhabo iyagoo calaamad hore ka saaran yahay soo galaan
wax aad ay ula yaabeen bulshooyinka reer Baydhabo hadalhaynta ugu badan ee ka jirta Baydhabo maanta waxay ahayd arrintaas ay ku tilaabsadeen ciidamada ka soo xarooday duleedka magaalada Baydhabo waxaana la filayaa in maalmaha soo socda saraakiil badan ay ka soo xaroodaan magaaladaasi Baydhabo banaankeeda ayna noqoto banaanku mid mar kale ay istaagto askartii ku laabanaysay waxa la leeyahay waxa la eegayaa habdhaqanka iyo soo dhaweynta iyo sida loola dhaqmo askarta cusub iyo mas'uuliyiinta timid ay eeganayaan kuwa kale haddii soo dhaweyn wanaagsan iyo maamuus wanaagsan loo sameeyana taas waxay sababi doontaa inay soo bataan askarta soo goosanaysa waxaana isla maantaba ka dhacay shir adag magaalada duleedkeeda halka lagu magacaabo Ceeldoon kaasoo yeesheen saraakiishii iyo madaxdii hartay waxayna hadda kadib ogaan doonaan cidda u imaanaysa iyo sababta ugu imaanayso waayahay dad badan waxay isweydiinayaan ciidankan waa yimaadeen yaa ciidanka hogaaminayay oo laga garan karaa hadda ciidamadaas ciidanka waxa hogaaminaya gudoomiyihii hore ee deegaanka Owdile Ibrahim Taalay oo kamid ahaa saraakiishii aad daacad ugu ahayd madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen waxayna ahaayeen ciidan qaarkood ay maalmihii ugu dambeeyay halkaas tageen laakiin kaga faa'iideystay fursadan cafiska ay loo fidiyay taasoo la doonayay in dhammaantood ciddii banaanka jirtaba ay gudaha ku soo galaan wasiirka ayuu ahaa shalay markuu uu sheegay taliyaasha iyo saraakiisha kale oo la kulmay ee Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka in taliye kasta oo qaado tallaabo uu kaga dhaadhicinayo saaxiibadiisa banaanka jira inay dib ugu soo laabtaan magaalada Baydhabo nolol Baydhabo banaankeeda jirtaan ay sidrin loona baahan yahay in laga shaqeeyo amniga iyo si sare loogu qaadi lahaa taasina ay ku xiran tahay saraakiisha iyo kuwa banaanka jiro iskaashada loona istaago in laga gudbo cabsida ay magaalada Baydhabo ku jirto wasiirka amniga ayaa ballan qaaday maalintii xilka loo dhaariyay in Baydhabo aysan marti u sii ahaan doonin dagaalada iyo dhibaatada ay ku hayaan isagoo ugu baaqay fariintan adag oo dirana jawaabteeda maanta ay muuqato oo ugu baaqay saaxiibada banaanka joogahay inay yimaadaan oo ay soo galaan magaalada Baydhabo ay sare jiri cid u haysata marka waxaad moodaa jawaabtii ugu horeysay ee wasiirku fariinta uu diray inay si adag u shaqeysay ayna xilliga kan muuqato in furfurka ugu weynaa oo ku socdo ciidanka Laftagreen waa gartay talaabadan maanta ciidamadan Cabdicasiis ka soo goostay maxay yeeli karaan halgankii iyo hawshii uu ku jiray ee Cabdicasiis uu ku hawlanaa inuu dib u la wareego Koonfur Galbeed in adoo ogaa in ciidanka Laftagreen halkaas uu ku haystaa aysan wada ahayn ciidankii daraawiishta oo qayb kamid ah gaar ahaan beeshiisa Hariin u badnaa oo halkaas geeyay lagala soo laabto 3 baabuur oo tiknika waxay u geysan kartaa dhaawac weyn waxaad ogay dagaaladii ugu dambeeyay ee ku soo qaadeen magaalada Baydhabo in qaar kamid ah gaadiidkoodii waliba qori zuug ahaa oo si weyn oo ugu tashay jiray Laftagreen qiimo badan ugu fadhiyay oo isku dayay inuu meelo badan ku badbaadiyo waa kii gacanta dawladda u galay Cabdiraxmaan Niishow taliyaha madaxtooyada iyo ciidan uu hogaaminayay oo u gacan galay in maantana 3 baabuur oo tiknika ay soo gasho waa jab weyn oo soo gaaraya dhinaca Laftagreen laakiin Laftagreen waxa la leeyahay taageero kale ayuu helayaa oo laga yaabo inuu dalalka dariska oo taageero badan ka helo inkastoo dawladda federaalka ay Soomaaliya la xaqiijiyay inay wada dadaaladeedu ugu adkaa ee ku doonayso inay ku ilaaliso xadka kagana warqabto wax walba xadka ka soo xaroon kara waa tahay ninkii aadan madoobe ahaa wax badan ayaa waxa ku dhaliilay inuu yahay nin maaragtay siyaasadiisu aysan shaqaynaynin laakiin maanta buriyadu iska jiray baa leeyahay bal ka waran maxay uga dhigan tahay Sheekh Aadan Madoobe hortilaabo adag ay uga dhigan tahay midaan oo hore loo qaaday laakiin arinta xusuuda mudana waxay tahay yaa shaqadan qabtay oo si dhaba si practical ya arintan oo la falgalay arintan waxa la falgalay waa wasiirka amniga ee uu soo magacaabay waxay taasi meesha ka saaraysaa in taliyaasha iyo wasiirada uu soo magacaabay Sheekh Aadan Maxamed Nuur ee la oranayay dadaan tayeelan ayuu keenay inuu dad tayeela oo keenay midda kale wasiirkan amniga Isaaq waa in ciidankii ku dhex jiray awal ciidanka xaggooda ka yimid si wanaagsan u garanaya saraakiisha iyo madaxda ciidamada ee ku sugan Baydhabo iyo banaankeeda iyo Koonfur Galbeed oo dhan si guud marka loo eego Sheekh Aadan Madoobe wuxuu qaaday tilaabo laga waayo hore u qaado laakiin Sheekh Aadan wali waxa u dhiman inuu ciidanka hortago ciidanka uu sheego waxa xaq ay u leeyihiin iyo waxa xaq loogu leeyahay la dhiirigeliyo loona sheegay inay yihiin ciidankii Koonfur Galbeed ilaa hadda Sheekh Aadan wuxuu ku sugan yahay madaxtooyada
filla koonfur galbeed halkaasuu fadhiyaa ciddii ugu timaado halkaas kula shiraa ciddii oo la shiraa waa sargaal ciidan isma arkaan marka waxay u baahan tahay inuu isbeddel kale la yimaado taasina waxay dhiirigelin doontaa in ciidamada ballanqaadyo loo sameeyo mushaaraadkoodii la fasaxo dib habeen xoogan lagu sameeyo saraakiishii ciddii darajo zaa'ida u qalanta darajooyin la siiyo ciddii awal darajo la'aaneed oo meesha ku dhibaneed darajooyinkoodii laga shaqeeyo oo dowladda federaalka uu la kaashado tilaabooyinkaasoo idila waxay samayn dooneen amniga sare loo qaado haddii dadaalada noocaan ay sii wadaanna aakhirka waxaad ogaan doontaa iyadoo ay soo wada xaroodeen tiimka lafta gareen aakhirkana siyaasiyiinta ay gorgortan ku jiraan arrin kale waxaa jirta xog ah oo laga helayo duleedka magaalada baydhabo arrintaas waxay muujinaysaa in siyaasiyiinta waaweyn ee halkaasi joogtaa asalba horay ee gorgortan ugu jireen marka arrintan waxaa la leeyahay inay ciidamo ka soo tagaan naftirkooda ayaa qayb ka ah oo khilaafkii maalmihii ugu dambeeyey qaarkood ayaa ogaay in arrintani ay dhacayso sidaas daraaddeedna waxay doonayaan in lasoo kala yareeyo khafiif banaanka laga soo yaraado oo arrintaas la khafiifiyo hoos loo dhigo kadibna la yidhaha war meeshan iskuma celiyi karnee aan galno dowladdan aan waxaan la qaybsan karna aan la qaybsan waa tahay arrintani marka ciidankii lafta gareen iyo qorshahoodii maadaama ay kala dhantaalayso ma la dhihi karaa khilaafkii maalmihii u dambeysay la sheegayay ayaa soo baxay oo raggu waxa weeye gudahooda dildilaac ayaa ka jira dildilaac baa ka jira arrimaha sida guud loo sharaxayana inaysan ahayn ayaa soo baxday xogo badan aa sheegaya in imaaraadka carabtu ay dhinaca dhaqaalaha ay lafta garan ka taageerayaan laakiin waxaa soo baxaya sababta la isku haystay khilaafaadka waxa keenay waxa dhiirigelin la'aanta iyo in ciidamadu soo baxaan keenay inay xaqaa'iqii deegaanka ogaadeen markii meesha tageen baahida ka jirta la ogaaday culayska ka jira la ogaaday dhaqaale xumada ka jirta la ogaaday kadibna dib loo soo laabanayo ayna dhammaadeen xoogaagii yaraa ee imaaraadku ay doonayeen maalmihii hore inay wax ku wadaan maadaama siyaasiyiintii naftirkooda ayagii doonayaan wix inay ka macaashaan oo wax ka helaan hawshiina la wado arrintiina aad ay u daba dheeraatay marka waxaad moodaa koonfur galbeed iyo dowladda federaalku licib la yaab leh inay la ciyaareen lafta gareen oo waqtiga loo dheereeyana wuxuu keenay culays dhaqaale iyo mid u baahan inuu helo kaabayaal kale kaabayaasha kalena ay ku adkaadeen dalalka oo xiriirka la lahaana Kenya iyo Ethiopia ay ahaayeen labadoona xiriir fiican dhaqaale dad bixiya ma ahan laakiin imaaraadka ayaa ugu roonaa imaaraadkuna dhowrka tilaabo hore ay rabeen inay qaadaan dhowrka tilaabo horena way suurtageli waayeen weeraradooda aad loo buushgareynayay dhaqaale badan ku baxayay saanad ayaa la siinayay laakiin waxaad moodaa in waayihii dambe in laga gaabiyay siday wax u heli jireen waayahay rag kale ayaa wadada ku soo jira ayaa leeyahay oo iyagana rag muhiim ah marka loo eego dhinaca miisaanka siyaasadeed ay leeyihiin iyo dhinaca hay'adaha amniga maxaan iyaga xog ka haynaa waa sababtay u aamustay dowladda federaalka saraakiishooda u aamuseen waa sababtay uga aamuseen dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aysan wax faahfaahin uga bixin kaliya soo dhaweyn ayay sameeyeen lama hadlin warbaahinta ilaa hadda xog lagama bixin waxaana la ilaalinayaa in la ogaado xogaha iyo qaabka arrintan loo galay iyo cidda arrintan tashkiilinteeda ka dambeysay iyo si aysan u fashilmin ragga kale soo socda arrintu halkaasi maraysa hadda kala shaki weyn ayaa jira dhaqdhaqaaqiya la waardiyeynayaa waxaa la leeyahay axmedow waxaa suurtagal ciidanka aaday dhinaca waajid inuu soo laabto oo uu ku soo laabto ilaa caawa ilaa bari inuu ku soo laabto laga cabsi qabaa ceeldoon maadaama raggii ugu muhiimsanaa oo arrintaas ka shaqeynaya oo wasiirka amniga ee koonfur galbeed ee lafta gareen ay kamid yihiin iyo gudoomiyihii hore waajid iyo ee xagga aadeen waxaa la leeyahay culayskii inta maadaama oo soo fulay war isuf soo kaana celiya aan mar kale hadda ma jirto awoodan isku fidino halkaas ayay maraysaa markaas waa la iswaardiyey karaa siyaasiyiintu laakiin maadaama ay maalin walba askari u tegaysay faraha ka badatay meeshii noloshii adkaatay waa la isceli waaye waa la iskontarooli waaye waa tahay aad baad umahadsan tahay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni xulashada wararka oo igala qaybgelaya cabdijamaal oo la socday wararkii ugu dambeeyey ee koonfur galbeed inoona falanqeynaya xogihii ugu dambeeyey iyo ciidankii ka goostay cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen aad baa umahadsan tahay